السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابته إذن سلامي janaalkayga ku xiran oo arki doono si khaas ah usoo geli doono insha Allah. Si kale ilaaba ayaan idin salaamay dhammaantiin sida muxuu ahaa caadada ee noo ah oo aan hore idin ku soo sheegay. Waxay noqon doontaa barnaamijkayga mid taxan ah hadduu Ilaahay yiraahdo oo aan kolba markaan waqti helo wax yar ku soo qaadan doono insha Allah tacaala oo halkan insha Allah igala socon doontaan dhammaantiin si baaxad weyn ayaan idin wada salaamay Soomaalida ku xiran janaalkayga meel kastoo ay joogaanba. waxaan ugu talagalay inaan suugaantayda kala duwan ku kala falanqeeyo oo ku soo qaato insha Allah tacaala. hadda maanta waxaan soo qaadanayaa in yar oo heesayga kamid ah erayadeeda oo aan kala falanqeey doono. horta anu sideedaba hadaan si faahfaahin guud iska bixiyo waxaan jecelahay suugaantayda ama erayada aan sameynayo inaan ku saleeyo muxuu ahaa dabeecadda dhulka iyo sida Ilaahay muxuu ahaa wadankeena biicada uu sameeyay iyo dhaqankii hore wuxuu ahaa oo Soomaaliyeed oo maguuraanka ahaa oo la yaqaanay marka hees la sameynayo waxa lagu heestas lagu saleyn jiray sida dhirta ubaxa muxuu ahaa biyaha udgoonka buuraha badaha waxyaabo macquul xoolaha waxaas lagu soo qaadan jiray. laakiin waayadan dambe waxaad moodaa fanka marka la sameynayo in damaca iyo qofka dhibti haysatay kaliya uu ku soo qaadanayo heestina ay sama ahayn midna xor leh oo muxuu ahaa qofkii uu dhadhansado marka uu dhageysanayo. marka anoo taa ka duulayo oo isleh in abaanin still way jiraan waaweyn maasha Allah laakiin suugaanti maadaama ay gabaabsi sii noqotay dadkan dambana ay murtiba curinaynin oo waxa ay sameynayaan aysan ku saleynayn doog iyo quruxda iyo wanaag iyo wadankeena maxaa dhaqankiisii wixii aysan ku saleynaynin ayaa anu waxaan isiri bal hinday waxa la qaatay mid dhaqanka ku saleysan oo muxuu ahaa dhirtii doogii udgoonkii iyo caraftii biyihii wixii ka hadlaysa inaad sameyso. marka insha Allah tacaala heesteeda labaad ayaan erayo yar yar ka soo qaadanaya. heestaas inta badan waxaan ku saleeyay muxuu ahaa mirihii waagii hore waxaan soo qaadanayaa ubaxa iyo udgoonka iyo hawada Soomaaliya wax walba ayaa ku jira. marka erayada hadaan idin bilaabo ayaa waxay noqonaysaa waxa tahay naq iyo doog neecaw udgoono igu simay nasiibkuya niyad sami ku noolow nasab kaamilo niyad saafi iyo xalaala nin ragee dulqaad badan waxaa tahay nal ii baxay ila naaxi caashiqa nimcasanna ila garo aynu gaarna nuurkee ii noqo midkaan rabe nasri waxaa tahay ilwaad nasiib la ii soo diro nagaaday ka soo degee. marka hadaan heesta luqad ahaan inaan ku heesaan aan u aqaanaa maxaan cod ahaan hadaan u mariyo waxay noqonaysaa nasri waxaa tahay ilwaad nasiib la ii soo diro nagaaday ka soo degee nudaha beerkayga waan filayaa inaad fahanteen hadaan laakiin mid u qaado waxay noqonaysaa nasri waxaa tahay ilwaad nasiib la ii soo diro nagaaday ka soo degee nudaha beerkayga. waxaan filayaa inay muxuu ahaa heestaas kulansatay dhammaan erayo macaan iyo muxuu ahaa jacayl ku dheehan ani ahaan aan ugu talagalay inaan bal ku saleeyo ma gaari karo abwaanadii hore mirana kuma gaari karo laakiin bal dhaqankii inaan laga tagin oo hees macquul laga dhadhansan karo udgoonkii wadankeena naturalkii in laga muxuu ahaa sameeyo. way jiraan heeso badan oo saas oo kale ay ku jiraan iyadana oo ku soo qaatay canabka iyo because heesii hore la qaadi jiray sida canabka beeraha miyuu ahaa kul ceesto qaadi jiro kale heeso badan ay jiray oo dhaqanka laga dhadhansan jiray. marka anoo wali suugaantii hore daba ordaya aanan gaarin laakiin daba rucleynaya ayaan isku dayay inaan waxyaabo badan ka bedelo suugaanta hadeer jirta waana soo wadaa insha Allah kama gaabin doono. dhammaantiina waa idin salaamayaa marar kalena waan soo geli doonaa anoo sii faahfaahin doona dhowrka heesood oo ii harsan kadibna u gudbi doona insha Allah tacaala suugaan cusub mid afka aan ka tiriyo iyo mid dhaqanka aan ka tiriyo iyo mid aan marxaladaha jira ka tiriyo iyo hadba wixii markaas ani horteeda ii muuqdo waxaan ka oran lahaa inaan insha Allah wax ka iraahdo. wadankana deelow kuma jiro oo mid la ilaabo maaha muxuu ahaa daadis iyo ogolaashaba oo u badnaan doontaa suugaanteeda hadduu Ilaahay yiraahdo intaana kaga mahari doono intaan nool insha Allah. wixii afka laga tirinayo wax dambi ay leeyihiin malaha. خير بدن يا دين رجيني. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.